waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bajaaliyada reer Jabuuti in markii ugu horeysay ay sanduuqa qaran ee Cnss bilaabayso howlgal kormeer ah dadka ku sugan 6 gobol ee Somaliland kana bilaabayso diiwaangelintii dadka howlgabka ah haddaba howlgalkan oo socon doona muddo 4 maalmood ayaa bilaabmaya 23 bishani kuna eeg 27 isla bishani shuruudaha looga baahan yahay qofku waa kaarka dhalashada baasaboor oo labaduba original yihiin iyo kaarka howlgabka waana kan safiirka oo faahfaahinaya waxaan maanta u yeelay idaacadaha ka howlgala oo dhan iyo telefishinada ka howlgala geeyga Somaliland dhammaantoodba anigoo u diraya dadka retrateega ee reer Jabuuti ee ku sugan geeyga Somaliland waxaan leeyahay bisha 23keega biirooga representaga ee jamhuuriyadda Jabuuti ilaa 27keega waxaan ka bilaabi doonaa laha miskiidka Sheekh Mustafa agtiisa waxaan niga codsanaynaa inaad timaadiin si aad isku diiwaangelisiin oo fiidii la maraya aad u martiin shaqooyinkii kale oo dhan waan joojinay waxaan isku fokaaliseynay oo isku taxaluujinay inaan dadkeena muwaadiniinta reer Jabuuti ee retrateega ah fiida iyagoo nala jooga asbakteeradii ka socday Caisse Nationale de Retraite Jabuuti ka socday ay nala joogaan aan wada shaqaynayno inaan u fududeyno oo xoogga saarno ayaan ugu talagalnay taa ay tahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo nagu amray annaka inuu meeshu doonaba Soomaali dadka reer Jabuuti ay joogaan in loo adeego oo loo fududeeyo waajibkooda si ay isaga dhaxarkaan dawladooda haddaba hamogaan oo isdiiwaangeli muwaadin ka hor inta aanay xidhmin fariintan waxaa idin soo gudbinaysaa xafiiska jaaliyadda Jabuuti ee Somaliland